sawirka aad ii muuqdo waa aniga fartida waa dhaawac iska yar laakiin dhiiggiisa oo aad u qulqulaya yani si daran muusan ahaan laakiin waxaa rabaa inaan yani idin sheego la talin caafimaad run ahaantii markuu dhaawacan igu dhacay waxa iga soo gaaray waxay tahay mooto bajaajaan dhaqaaya aan ku shaqaysanayay dhaawacan iga soo gaaray waxaa jirta markuu dhaawacan igu dhacay soomaalida horta marka hore waa cajiib dhaawaca markuu iga soo gaaray qof wuxuu ku leeyahay qaxwo saar qof wuxuu ku leeyahay maxay radaa kan dhuxul aan kaa mariyay kii ugu darna wuxuu u yiri kan liin aan kaa mariyay yani waa mid xanuunkiisa kala wata cajiib waay haddana mid kale wuxuu yiri isla bajaajka aan ku shaqaysanayay waxaa jirto bajaajka bareega markii la qabanayo oo la fariina jirto oo lagu shubo oo la fariinta rafikeeda farsa dhexgeliyo yiri cajiib يعني قف كستر كو ديبا سي يعني ديغاس او كا جوجسدو ama xanuunkaas uu ka joogsado marka alcumuum ani macnaha waxa raba inaan la talin aad sheego ama yani caafimaadkaaga waa shay muhiim ah marka hore waxa raba inaan kula wadaago markii yani aad aragto dhaawac noocan oo kale ah waxa wanaagsan dhaawac marka hore inaad biyo nadiif ah yani ku shubto si aad wasaqda yani iskaga hagaajiso sidoo kale waxa isku dayda inaad dhiig yani aad joojin karto si yani tartiib ah ama يعني إن بريشر أو كلا صارتو يعني مرة أو وحرتو يعني ديجس يعني أو كلا جوسن لها أما يعني فاشته هاي كرتو لكن أنا إنكستو أنا هيلواي بيو ما هاي هذا واحد معناها أسيحرو مرة وعن كل تبع وايو يعني حالة إمرجنسي أو جرحه وحنونك أو تجنا ديجن أو يدري رسمه مركز سيدو كل حاسكو ضيدا إن الدوال كرتو يعني ديجاسي وحالة وكهفة في مركز ناخذ كله si yani aysan infection yani aysan kaaga gaarin iyo sidoo kale haddii yani jihitaankaaga uu weyn yahay ama yani dhiigaaga uu istaagi waayo u tag xarun caafimaad weliba si yani emergency ah sidoo kale waxaa la yiri caafimaadku waa raasamaalka aadanaha qofka caafimaad qabana wuxuu leeyahay fursad uu ku heli karo adduun iyo aakhiradiisa halka kan bukana uu dareemayo inuu nolosha yani adag tahay sidoo kale qalbiga caafimaadka qaba iyo jirka caafimaadka qaba labaduba xujo oo Allah subhanahu wa ta'ala ku imtixaanay aadaniisa hadba yani sida ay ugu faa'iideysan karaan ay qiimaha lagu cabiraa quraanka waxa ku jirta ducada nabi ibraahim alayhi salatu wasalaam ku duceysan jiray wa idha maridtu fa huwa yashfini marka xanuunsadana Allah subhanahu wa ta'ala idaaweynaya wa asiga yani idaaweynaya sida darteed caafimaadku waa amaano iyo nicmad yani u baahan in aad loo ilaaliyo waxa haboon in yani jixitaanka yar ama yani aad waxay kugu dhacay yani aad u aragto in yani lagu xasuusinayo qiimaha caafimaadka yani uu leeyahay